jaamacadda Jazeera madaxda jaamacadda Green Hope macaamiisha kala duwan ee shirkadda Samtel ee ka soo qayb gashay maanta barnaamijkan dhammaantiin waxaan idinku salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. markii xiga waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo sida waqtigiinii qaaliga ahaa aad noo siiseen maanta oo aad noo soo ajiibteen inaad nagala soo qayb gashaan barnaamijkan qiimaha badan ee maamuus macmiil. runtii barnaamijkan maamuus macmiil wuxuu galay asbuuciisii 8aad wuxuuna socon doonaa haddii aan la yiraahdo ilaa bisha December ee sanadkan 2022. run ahaantii shirkadda Samtel mar walba waxay u taagan tahay inay taabageliso barnaamijyo ay ku dhiirigeliyeen macaamiisheeda sida barnaamijkan maamuus macmiil oo shirkaddu ay ugu tala gashay inay ku dhiirigeliso macaamiisheeda run ahaantii qaaliga ku ah. shirkaddu mar walba macmiilka waxa ay ka qaado waxay go'aansatay inay asagii haddana dib ugu celiso oo ay uga faa'iideyso. runtii barnaamijkan waxaan ku bixinaa hadiyado aad u qiimo badan oo kala duwan hadday ahaan lahayd dahab tower, hadday ahaan lahayd motor bajaaj, hadday ahaan lahayd laptop, dahab, khasaalad, firintijeer, makiinadda raashinka inay sponsor ay ka noqoto waxbarasho intaasoo dhan iyo in badan oo badan. runtii shirkaddu waxyaabahaasoo dhan waxa ay u sameeyeen waa inay ka faa'iideystaan macaamiisheeda qiimaha badan. waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago shirkadda bishii naga dhammaatay waxay daah furtay dugsi aad u weyn oo tababar oo tiknoolajiyada loogu talagalay ardaydu inay ku baraatiggareeyaan ama ay ku tababartaan. runtii dugsigaas waxay shirkaddu ay u dhammaystirtay dhammaan qalabkii loogu talagalay in ardadaasu ay ku qaataan traininka ama tababarka ama baragtiiska had walba qofka siduu u yaqaano. run ahaantii shirkaddu waxay ku bixisay malaayiin doolar sidii ay u hirgelin lahayd dugsigaas tababar. run ahaantii ujeedka ay ka leedahay shirkadduna wax kale maaha waa inay soo saarto arday Soomaaliyeed oo dhinac walba ka dhisan. run ahaantii saanka warqabno ardaydu jaamacadaha waxay ku soo qaataan theory ahaan, shirkadduna waxay ugu tala gashay inay baraatikadii ay u baahnayeen oo tiknoolajiyadda ah ay halkaas ku dhammaystirtaan. ardaygaasu markii uu dhammaysto waxbarashadiisana berrito markii uu magaalada u tago arday dhinac walba ka dhammaystiran asagoo ah inuu magaalada uu shaqo iyo wax walba uu rabo uu si fudud uu ku heli karo. waxaa kale oo aan rabaa inaan halkan fursaddan uga faa'iideysto shirkaddu asbuucii hadda naga dhammaaday waxay heshiis kala siixideen jaamacadda Jazeera oo hadda nagala joogo ustaad Cumar iyo injineer Jamiila. heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis wada waxqabsi oo labada dhinacba ah oo ay iska kaasho doonaan haddii aan la yiraahdo waxyaabo badan. waxaan kaloo rabaa inaan fursaddan uga faa'iideysto jaamacadaha kale oo magaalada Muqdisho ku yaalo dhan wuu u wada furan yahay heshiiskaas labada dhinac ah oo shirkadda iyo jaamacadaha ah inay ka wada faa'iideystaan insha Allah haddii la yiraahdo. waxaan kaloo rabaa inaan ku soo gabagabeeyo shirkadda Samtel awaadiska ama abaalmarinaha ay bixeen waxaa ka mid ahaa oo asbuucyadii ugu dambeysay aan halkan ku generate garaynay abaalmarin xaj ah. waxaan rabaa inaan hortiina aan ka caddeeyo abaalmarintaas qofkii ku guuleystay
maanta oo ay taariikhdu ay tahay 2 bisha Juulaay wuxuu si rasmi ah qofkaasi ugu suurto gashay shirkaduna ay u suurto gelisay inay u amba bixiso dhulkii barakeysnaa ee labada xaram ee Maka iyo Madiina si uu u soo guto waajibaadkiisa xajka. waxaan isleeyahay waxaana taabagelisay oo suurto gelisay shirkadda Samtel. run ahaantii shirkadda Samtel mar walba waxay u adeegtaa macaamiisheeda, mar walba waxay garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed hadday ahaan lahayd dhinaca waxbarashada, dhinaca inay ka qayb qaadato abaaraha iyo ugurmashada ummaddeeda, hadday ahaan lahayd dhinaca isboortiga iyo social responsibility oo dhan. marka waxaan leeyahay aan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan idinkaga mahad celiyo waqtigiina qaaliga ahaa aad soo siiseen. asbuucii 8aad barnaamijka maamuus macmiil halkaas ayaan kusoo gabagabay doonaa insha Allah haddii aan yiraahdo. wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.